بلا صابكي هره مددي أن حلك هيين ودشقين إني وحي أو عان كوها رنتي أي تهاي أنا فيلينا إن أنا نكحلنا بلا صابك عصب وحوي ورتوحه حانين هول كره رنتي وحانين سمر بدن وحيابة بدن وأنا وهالكيس هدي الجوجو وأنا دقيقة كقال لها ninka dejin jiray buu ahaa barasaabku ee uu jiro dawaaga inuu bariino horta bahash waanu qabnay waanu haynaa warbixintiisa Soomaalidu waxa weeye dhaqan bay noo leedahay iska oral society information kala soo gaarsiiya halka maamul xun joogo iyo halka maamul wanaagsan joogo waxaanu leenahay barasaabka Abdu Ahmed gacmo furan baa ku soo dhaweynaynaa waxaana filaynaa in wada shaqaynteenu ay noqon doonto mid aan maskaxdaada ka bixin وأديب حسوسته حلك سؤال قوته يملك سؤال كل هذا البلد أورن مايو نبض برساب أيها كل هذا الله سدح بين بنشوبي قال البولم قرب شوب وانا فرينت عن دوني يو هالكن إن أنا نقول بيو قرب شوبي عن كيمي أما يوروب أما نورث أمريكا أما ميدل إيست أما مالها كلي الدنيا ده iyo dadka jooga wadanka gudihiisa baqas ahaan gobolka Awdal waxa weeyaan dalka aynu haysano gobolka aynu haysano degmada aynu haysano hadii aynaan inaku wax ka qabsan wax u qaban isku tiirsanaan gacanta is qabsan waxba hagaagmayaan cidda inooga imanaysa ma jirto ugu muhiimsan ee aanu sidnaa waxa weeyaan ay dalkooda u sidneeyay boorma degmada boorma ee gobolka Awdal ugu horeeya waxa weeyaan aqoonta ayaa wax walba ka muhiimsan waxa gacanta lagu hayo aqoonta ka muhiimsan aqoontii aan halkan ku tuhmano ee gobolka Awdal uu leeyahay waxaan ugu sii daranaa aqoonaha aan dibadda kala nimi jaamacadaha Yurub iyo North America aanu kala nimi inaan ku kordhino fikradaha way aragnimada istoosinta isu dulqaadashada isu ixtiraamka karaamada hagaagsan halka ay ku jirto taasaan loo soconnaa waxyaabihii kale ee maadiga ahaana waa daba socdaan anigu imika waan tegayaa wiilkan soo socdaan baxaya ilaa 8 dal baan doonayaa inaan isu maro waxyaabaha magaalooyinka aan u baxano inaan wax ka qabanno ilaa dawladda hoose Boorama ka koowan waxa aan dadka Boorama u sheegaya degan saddexdii habeen aan joogay waxyaabo aan ku arag magaalooyinka kale ayaa ku arko lagu faano magaalada population inta leeg degan yihiin ee dunida meesha tagtaba dhibaatooyin badan bay leedahay meesha dad isugu yimaadaan tuug bay leedahay dhac bay leedahay dad wax crime ama dambiyada sameeyo bay leedahay dadka dila saddex habeen baan joogay Boorama kuma arag gawaarido furan baa laga tagaa Boorama magaalo kuma arag anigu Soomaaliland oo san oo kala oo baabuurka furan oo mobilkiiyo iPad dahiyo waana wax aad iyo aad loogu farxo fariintaana waan qaadayaa ilaa intaan soconayo waxaan ku soo gabagabeynay wanaag badan baa inoo soo socday aynu gamcays qabsano maayarka cusub la shaqeyno barasaabka cusub la shaqeyno kuwii horena u ducayno waa kaftamaya erey kaftana waxaan erey oranayaa waxa weeye Awdal gobolka Awdal erey aan oranayo gobolka Togdheer iyo erey aan farayo ama aan u soo jeedinayo maamulka ama Jamhuuriyadda Somaliland waxa weeyaan Awdal aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sidii wanaagsanay aad ila shaqayseen aad ila hawl gasheen waxaan rajaynayaa inaad si fiican oo wanaagsan gudoomiyaha cusubna ula shaqayn doontaan waxaan la kaftamayaa waxaa jiray asxaab fara badan oo saxaabadaya oo aad iyo aad u tafaxaytay markii uu dhacay doorashadii golaha deegaanka oo yidhi waxa weeyaan gobolkii uu maamulkiisa uu beeloobay iskuna dayay inay maaragtay ay ka hadlaan in isbedel lagu sameeyo waxaan idinku soo dhaweynayaa maanta in madaxii gobolka Abdu Ahmed
marka waxaan malaynayaa inaad gool kaa gaadheen okay waan ku soo dhaweynayaa soo dhawaada gobolka Togdheer ama gobolada kaleba ee Somaliland waxaan leeyahay maanta waynu hor soconaa awdal waynu hor socotaa runtii waayo waxa weeye marba inta wax laynaga dayday way badan tahay waxaan markaa leeyahay reer Togdheer aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wada aragtaan aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa xubintii maaragtay maamulkiina u sarreysay ee aad noo soo bedelay waan soo dhaweynaynaa waxaan idinkana idinku gubaabinayaa in ay sidoo kale xubnaha awdal ka tirsan ee gobolka ku nool sidii hore ka fiican inaad soo dhaweysaan dawladda adii hay'adda waxaan leeyahay waxa weeyaan maamulka xilku waa meerto wey xilku waa meerto waxa weeyaan anigu waxaan ahay imakas kuma soo biirin ku cusub siyaasadda saaxadda ee Somaliland maahi ayadoo Somaliland waxba ahayn ayaan shaqeynay ayadoo waxaana waan ka shaqeeyay waan maamulay iyadoo hore u sii socotana waan ka shaqeynayaa waan joogayaa waxa dibadii lahayn waxaan xusuusinayaa idinku salaamayaa dhammaantiin runtii aad iyo aad ayaan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin sabootinayaa gudoomiye gobolka waxaa jooga nabadoonnadiisu waxay guud ahaan inta ay wasaaraddu ansixisay ay gaadhaan ilaa 270 ilaa 270 nabadoon salaadiyiintuna tirawey 159 ayaa mushahar qaata 159 ayaa mushahar qaata oo mushaharkii loo soo daayay waxaan kaa codsanayaa inaad aad iyo aad horena wasaaradana hore waan gaarsiiyey waxaan gudoomiye kaa codsanayaa inaad raggaasi oo runtii lafdhabarta nabadgelyada ah ee gobolka in loo soo daayo mushaharkii ay xaqa u lahaayeen ayadoo ay jiraan in qaar haysta 6 sano qaar haysta 7 sano qaar haysta 5 sano oo aan weli mushahar qaadan laakiin si joogto ah noola shaqeeya markii aan u baahanaba iyagana aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waan idin salaamayaa runtii waan idinla joogaa maanta waxaa oo taariikhdu tahay 14 bisha February waxaa farxadii ah in la igu soo dhaweeyo gobolka Awdal iyadoo la ii egmaday xilka barasaabnimo ama gudoomiyenimo ee gobolka Awdal runtiina waxay ii tahay farxad aad iyo aad u ballaaran sababtuna ay tahay waa gurigaygii waa gobolkaygii waa hoygii aqoonta waa hoygii nabadda ee Somaliland waana run ahaantii waxa weeyaan maanta dawladnimada aynu ku naaloonayno iyo nabadda aynu ku haysano ee ku faanayno waa halkii ay ka soo kotay ee ka asaasantay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magacaabista lay magacaabay haddaan in yar ka idhaahaa gobolka Awdal waxaa runtii gobolkan wuxuu leeyahay barwaaqo badan inta barwaaqadu laga helo intaba way ku astaysan tahay gobolkan hadday badda tahay hadday buurihii tahay haddii ay xoolihii tahay iyo degaankaba waxaa intaa dheer gobolkan Awdal inuu haysto oo uu iskaga filan yahay aqoonta lagaga faa'iideysan karo khayraadkaas oo dhan ay isaga bulshadiisu runtii aqoon u leedahay oo ay noqon karto mid loogu faa'iideeyo una baahan hogaamin wanaag waxaan mas'uuliyiinta gobolka madax dhaqameed aqoon-yahan iyo bulshada reer Awdalba dhammaan ka codsanaya inay isku kay garab taagaan inaan ku hogaamiyo horumar nabad iyo wanaag aniguna daacadnimo ku dheehan aan lahayn kala qaybin laakiin isku duubnaan midayn Awdal aan ku hogaamiyo ayaan bulshadana ka codsanaya
inay isku ka garab taagto waxaan idiin ballan qaadaya inaan dhegaysto waxaan kaloo ballan qaadaya inaan waxba aanan kala hakran ama aanan awooddayda waxba ka haystiin sidii aan u horumarin lahaa gobolka Awdal una dhaafin lahaa gobollada kale runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa barasaabkii iga horreeyey ee maamulka gobolka hogaaminayay oo nin waayeela waxgarada aqoon-yahana runtiina gobolka heer fiican oo lagu faani karo soo gaarsiiyey waxaana leeyahay waad ku mahadsan tahay waana gobolkaagii soo waxaana la yidhaahaa waxa waajibka kugu ah cidina kaagama mahad celiso laakiin waad ku mahadsan tahay waxaan aad iyo aad mar labaad uga mahad celinaya soo dhaweyntii qiimaha lahayd ee farxadda lahayd ee keliya laaba lahayd ee bulshada reer Awdal ay ugu soo dhaweeyeen aniguna jawaab celin waxay ka muuqan waxqabadkayga iyo joogitaankayga insha allahu tacaala waxaan leeyahay aan wada jirka ilaashano midnimada ilaashano walaalnimada ilaashano horumarku wuxuu ku yimaadaa isku duubnida wuxuu ku dhismaa gobol iyadoo bulshadeedu ay isku xidhan tahay sidaa darteed waxaan idinka codsanayaa dhammaanteen innagoo ah ama ha ahaato maamul ama ha ahaato golihii degaanka ama ha ahaato salaadiintii ama ha ahaato cuqaashii ama ha ahaato aqoon-yahankii haween iyo ragba midkay doontaba ha noqoto adduunyada imika waxaa firfircoon runtii haweenka dhinaca haweenka ka firfircoonta weliba meelaha aan ka nimi haweenka aada u firfircoon sidaa darteed waxaan leeyahay waa inaynu isu wada kaashanaa sidaynu gobolkeena u horumarin lahayn waxaana leeyahay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin xafladda iyo soo dhaweynta aad ii samayseen aniguna waa ka jawaab celin waxqabadkaygaana ka muuqan wasalaamu calaykum waraxmatullahi in badan baad moodaa in la isku faaray oo la isku dhibcatirsaday waxaan horta ka qirayaa sidci waa nin aad iyo aad qaali u ah waa ninaan aad u aqaano waa ninaan in badan soo wada shaqaynay waa nin ilaa iyo muddadii ololuhu uu joogay aan aad iyo aad isku naqaano laakiin waxaan aad uga xumahay inuu bedelku u dhacaa iyo xilka oo laisku wareejiyaa u dhacaa inuu yidhaahdo kaftankii ahayd reer Awdal oo rag baa wax doontay abinay rag wax dooran jireen midna waa helaa midna waa weerar waxba taasi male maanta haddii lagu soo bedelay Mr. Ayer waa ilaahay mahadi mid baan rabaa inaan yar iftiimiyo waxa dhacay isbedel aynaan hore u arag muddadii dhowr iyo 20 sano ahayd ee xilka ay Somaliland gooni isku taagtay waxaynu ognahay in gobol walba ninkii ka soo dhashay uu looga dhigi jiray gudoomiye oo la yaqaano carruurtu yaqaanaan iyo dumarku yaqaanaan markii talo badan iyo la tashi fara badan laga galayna waxa la go'aansaday in la isku bedelo badasaabyada gobolada uu madaxweynuhuna go'aanka iyo taladaasi uu ku dhaqaaqay taasina waxa ay faa'iido u tahay bulshada isdhexgalkeeda in ay bulshadu isdhexgalato ay isdhexgalaan isbartaan ninka boorama jooga ee ku dhashay uu ceerigaabo wax ka soo arko ee aan weli dhankaaba u dhaafinka ceerigaabo jooga uu saylac tago waana waxa la soo dhaweynayo aadna aan ugu faraxsanahay taasina waxaan tusaale uga soo qaadanayaa markii xamar laga soo qaxay baa anagoo baydhabo joogna ayaa waxaa yidhi dadkii reer Awdal oo qaxaya halkan maraya nin reer baydhabo ahaa oo markaa xogaya ka ahaa dowladda hoose ee boorama beri la keenay ayaa ciyaalkiisii oo aan isku iskoolahay yidhahdeen bal namariyo soo eegna dadka reer Awdal waaban isgaranay halkiina waxaan ka helnay martigashiin marka waxaan rajaynayaa inay noqonayso nidaam lagu guulaysto oo dad badan isku bartaan iskuna dhexgalaan sidci waxaan leeyahay waad mahadsan tahay waxqabadkaagii waan kuu ognahay kartidaadii waa lagu ogyahay taariikhdu been ma qorto wixii aad qabatay aad iyo aad baan kuugu mahadnaqaynaa ilaahay miisaanka xasanaadka ha kuu saaro haddii aan wax ka idhaahdo Cabdo Ayer waxaad moodaa run ahaantii nin la jecel yahay la soo sagootiyaa waxaan qirayaa inay maanta dad fara badan oo soo dhaweyntii madaxweynaha u hadhay ay nagaga hadheen magaaladii Hargeysa intaan soo raacday in aad arkaysiin oo indhihiina ku arkaysaan marka waxay noo yimideen nin dadkii uu ka yimid ay jecel yihiin
أنا إننا واحد لا يكرتينا إنا نتشعلانه وحي وقبتنا وينوقبت يعني واحد لا يكسر له وضل كاغي وضد كاغي وضد آلية آلون حريص بدن وضد آلية آل ولي حق الدين تنوبو ديريا وضد أي منافقات وكفوقتها هير أوضل وحرجينا يا قدوميين أتصلا شاقادان وحقبت فيها رباطك على ورا فيها رباطك وحكسمي قدوميه برعو كيسينا سيدا لا شيغay waa uga fadhina laakiin reer awda waxa looga fadhiyaa gudoomiyuhu marka uu sameeyo airportka uu sameeyay insha Allah billahi karim inaguna ina diyaaradihi soo iibisaan kaasi uu sameeyo cidna inaga dhicino looran la shaw meesha cilmo ma soo fadhiisanay hadda la inooga fadhiyaa ama diyaarada sameysano ama aan soo iibsano ama dadkeena ka soo dhijino marka uu samarku bilaabmo waa inay isniin iyo khamiis kasta soo fadhiisataa diyaarad sida ugu yaraan 50 qof oo reer awdala waa bala qaadina gudoomiye markaad noo samayso hadduu maamulkiisu wanaagsan yahay wuu taagi karaya madaxweynaha ma wanaagsan karay laakiin haddaan soo marin ma cabdoona runtii aqoonku filim buu leeyahay aqoon ka dheer buu leeyahay isaga ilaahay hawshiisa u sahlo ayaan isagan ilaahay uga bareeyaa wax kastoo wasaaradda arrimaha kaga xiran gobolka ama maxaa yahay على كل حال ترى حكون راعي سامتهم كلا يلا قبل ما نفهم قبلنا الله بقول يلا كم بيهاين نبض الله المشاهد الله يلا وين كنت بتني تاكتن أنه يديروا حكى سنمرة المسؤولية ده تكون كلا يلا الأرض الثانية الأرض عدين أنه أنت أصلاً تحكي لنا هتقول هاي نفس اللون دايو وأنت دارنا سيد نبض الله ضمان بنور لسكريسان أنت هذا إيه اللي هاي نبغى المشاهد وده وجوتها ودهان dadka waa salaamay imkan waxaan ku soo dhaweynaa sidii waqtigu uu ahaa labada gudoomiye gobol ee xilka la kala wareegaya inaan dadka u kala wareejino wixii dadka masha qoraa ku soo dhawaada labada gudoomiye waxaa xilka halka u kala wareegay waxaan ku ducaynaynaa in ilaahay gudoomiyaha gobolka meel khayr la mariyo dadka kala tagaya gobolka gudoomiyaha cusub ee hawshiisa fudeeyo ay dhamaanteen faataxada oo uga maro xilkii la kala wareegeen maanta ay bishu ay tahay 14 bishii labaad laba kun iyo 13 reer boorweyd kala aad iyo aad baad mahadsantihiin marka siirada wala wareega waxa siirada marka barsaabka ale siirada tuula taliya qaybta ale ma haysan ma haysan tuuga aniga ahay bariga barsaabka qaadan waa fiican aniga walaha hadaba ay tirtay waxyaan ka xisabtay markii anaga iyo kaayday marka aan madaxa anaga isgelinayo sidii dal joogi ha